بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وعند وضيال كسو دوادا برنامج كبندقة HBN برنامج كان قبي أهم وحن كسو قادنينا. Thank you, my brother. I support you. 1 year ago, we were here talking to New Yorkers. واكما زهران ممداني نينكا مسلم كاه ترامب يا إسرائيل يو وليبا دادكا تجارتا رير نيويورك أي كسو هرجيدين إنو نقضو دوقا مقالة نيويورك sidee ninkan oo si cad uga soo horjeeday nidaamka sahyuuniyadda ugu guulaystay magaalo dadka ugu dhaqaalaha badan ay taageeraan Israa'iil xagee ku dhashay goorma ayuu siyaasadda soo galay sideese ayuu ku gaaray heerkan macluumaad faahfaahsan oo arrimahaas ku aadan ayaan idinkugu haynaa barnaamijka internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. wargelin muhiim ah ma doonaysaa in laga cimriyo waalidiintaada oo dhintay ama sariiryaal ah wax ka yar $300 ayaa lagaga cumraynayaa waalidkaaga. shirkadda Altaqwa ayaa kuu samaysay qiimo dhimis. waxaa lagu soo duubayaa muuqaalo ku saabsan qaabka cumrada ay u dhacday. haddaba wixii faahfaahin kala xiriir shirkadda Altaqwa Hajj and Umrah nambarka shaashada kaaga muuqda. ma ogtahay in hilibka yaalla suuqyada dalalka qaliijka Yurub iyo Mareykanka aad ka helayso magaalada Muqdisho Somali Meat Company ku dooro hilib nadiif ah oo lagu qalay kawaan nadiif ah iyadoo la hubiyay badqabka caafimaadka xoolaha hada dalbo hilib geel lo ama ari adigoo ka heli kara xarumaha Somali Meat Company ku leedahay gobolka Banaadir ama wac nambarka ku muuqda soo dhawaada mar kale daawadayaal maxamed cade oo soo baaray xogtan ayaa khadka ku jira maxamed bal hore aan ku bilowno waxa laga yaqaan Mamdani زهران كوامي ممداني ayaa waxa uu noqday ninka loogu hadalhayn badan yahay marka ay timaado siyaasiyiinta gobolka New York ee dalka Mareykanka marka la fiiriyo marka laga hadlayo siyaasadda qaranka waxa uu ku dhashay wadanka Uganda waxa uu ka soo jeedaa qoys Hindi ah oo lagu yaqaano in ay aqoonta iyo fanka xididda ku leeyihiin. Mamdani ayaa siyaasadda Mareykanka ku soo kordhiyey waxa lagu sheegay in uu ka duwan yahay dadkii hore uga shaqayn jiray gobolka. waxa uu matalaa degmada Queens la yiraahdo 36aad magaalada New York wuxuuna qayb ka yahay siyaasiyiin cusub oo hadda soo baxay oo horumar weyn sameynaya inta badanna ku ololeeya cadaaladda xagga dhaqaalaha in xuquuqda dadka ay guriga u helaan iyo in mowqif cad ka qaato siyaasadda arrimaha dibadda ee wadanka Mareykanka si loo fahmo cidda uu yahay ninkan Mamdani la yiraahdo iyo waxyaabaha uu ka shidaal qaato iyo taageerada sida uu ku helay ayaa waxa la leeyahay waxa uu u muuqdaa ninkani in cambaaraynta ay dhinacyada kale u jeedinayaan in cagsigeeda uu helo in uu marka la fiiriyo taariikh nololeedkiisa iyo mowqifkiisa siyaasadeed iyo wixii hore u soo qabtay waxaa muuqata in bay'adii siyaasadda ee uu ku shaqeynayo ay ka duwan tahay siyaasadihii hore ee Mareykanka uga jiri jiray. waa gartay sidee noloshiisii hore ama taariikhdiisii sida halka uu ku dhashay maxaan ka ognahay Zohran Mamdani ayaa ku dhashay magaalada Kampala sanadkii 1991 waxa uu ka dhashay qoys aqoon-yahano ah iyo fankana ku fiican. aabihiis Mahmoud Mamdani ayaa waxa uu ahaa nin aqoon-yahana oo Afrika iyo taariikhda gumaysigii Afrika wax badan ka og aqoon badan u leh. hooyadiisna waxa la yiraahdaa Mira Neer waxa ay ahayd dadka filimada sameeya. filimada ay sameeyso waxa kamid ah Salaam Bombay iyo Monsoon Wedding ama Nikaahi Monsoon iyo filmo kale
ninkan ayaa waxa uu ku soo koray dhaqamo fara badan waxaana uu Zohraan si sahlan oga hadlaa cadaalad darrada dadka soo galootiga ah iyo siyaasadda caalamka asagoo da'yar ayuu bilaabay inuu arrimahaasi uu xiiseeyo markii uu ilmaha yar ahaa qoyskiisa ayaa waxay u soo wareegeen magaalada New York halkaas oo uu galay school kadibna uu galay jaamacadda la yiraahdo New Haven ama New Haven ka hor inta una siyaasadda ku soo biirin Mamdani ayaa waxa uu soo noqday xildhibaan khibraddiisa ayaa waxay qaabeysay in uu ka shaqeeyo arrimaha guriyeynta iyo cadaaladda dhaqaale marka la fiiriyo taariikh nololeedkiisa waa ka duwan yahay siyaasiyiinta badan ee Mareykanka ee gaar ahaan New York ku dhaqan waxa uuna noqday nin hadda siyaasadda ku soo biiray oo cadcad taageerayaashiisa ayaa waxay u arkaan inuu buundo u yahay wadamada koonfurta adduunka saddexaad loo yaqaano iyo siyaasadda Mareykanka dadka dhaleeceeya ayaa waxa ay ku doodayaan in nolosha uu ku soo koray iyo khibraddiisa ay aaminsan yihiin in uu ka duwan yahay siyaasadda ay fahmi karaan dadka Mareykanka khibradda uu caalamka u leeyahay ayaa saameyn ku leh siyaasadihiisa iyo qaabka uu oga hadlayo arrimaha caalamka waa gartay marka siyaasadda siduu ku soo galay iyo niyadjabkii uu la kulmay 2020kii bal inooga waran Mamdani ayaa siyaasadda ku soo biiray sanadkii 2020kii markii uu u tartamayay in uu xildhibaan ka noqdo baarlamaanka aqalka hoose ee New York ama degmada 36aad oo ah deegaanka uu degan yahay Astoria la yiraahdo oo kamid ah xaafadda Queens waxa uu ka tirsanaa dadka ugu cadcad isbedel doonka xisbiga dimuqraadiga iyo xisbiga arrimaha bulshada ee Mareykanka waxa caqabad la tartamay oo caqabad ku noqday ninka xilka markaasi hayay oo Arabella Sematas la yiraahdo guushiisa ayaa waxa loo tixgeliyay inay ahayd mid isbedel weyn ku keenta siyaasadda waxay qayb ka ahayd isbedelka ku imaanayay musharaxiinta siyaasadda isbedel doonka ah gaar ahaan xisbigii uu markaasi dimuqraadiga oo ka tirsanaa oo ku guuleystay doorashooyinkii maxalliga ahaa ee meelo badan oo kamid ah magaalada New York taageerayaashiisa ayaa waxay u arkaan guushiisan inay tahay guul u soo hoyatay siyaasadda laga dhex ololeeyo bulshada dhexdeeda Mamdani ololihiisa iyo aad wuxuu isugu tiirinayay ugu tiirsanaa inuu albaab kasta garaaco xaafadaha uu rabo codka in uu luqado badan dad ku hadla ay la shaqeynayeen oo ah dad mutadawiciin ah halka musharaxiinta kale isku hadleynayeen lacaga ay kasoo urursadaan shirkadaha waaweyn dadka cambaareynaya mowqifkiisa ayaa ku doodaya in ajendayaashiisa ay ahaayeen kuwa aan maskaxda geli karaynin ama siyaasad mabaadi' culus ku xiran laakiin si kastoo ay tahay doorashadiisa ayaa waxay muujinaysaa in isbedel weyn uu ku yimid nidaamkii siyaasadda ee loo maareynayo iyo dadka waxa ay ka fahmi karaan gobolka New York ee waddanka Mareykanka waa gartay marka maxaa ka mid ah waxyaabaha uu sheegay inuu muhiimadda siinayo markii uu xafiiska qabtay January 2021kii Mamdani ayaa bartilmaameed ka dhigtay siyaasadda guriyeynta iyo xuquuqda dadka deegaaminta u baahnaa ama guryaha deganaa iyo gaadiidka dadweynaha Mamdani ayaa waxa uu noqday codadka ugu muhiimsan ee riixayay in dadka aan guryahooda laga saarin qawaaniintana wax ka bedelay loogu talagalay in lagu difaaco dadka guryaha kireysta oo aan ijaarka lagu qaaliyeyn karaynin isla markaasna aan guriga si sahal looga saari karaynin wuxuuna ku doodayay in guriyeynta
loo tixgeliyo inay tahay xuquuq asaasi oo qofka bini aadamku leeyahay oo aan ahayn wax laga baac mushtari karo. taageerayaashiisa ayaa u arka in uu horseed ka ahaa taageerista dadka dhaqaalahooda uu aad u yaryahay oo guryaha deganaa inaan guryaha laga saarin iyo qoysaska shaqooyinka aan lacagaha badan mushaarka badan laga qaadin ka shaqeeya. ururka ay leeyihiin dadka guryaha kiraysta iyo qaar ka mid a xisbiga dimuqraadiga ee siyaasadooda furfuran tahay ayaa kasoo horjeestay siyaasaddiisa, waxayna ku tilmaamayeen in uu cabsi gelinayo in guryaha la dayactiro ama dad laga ijaaro. doodaasna waxaad moodaa in ay xiisad weyn ka abuureysay muddo dheer magaalada New York marka ay timaado. Mamdani ayaa sidoo kale waxa uu taageerayay in dadka xoolaha haysta canshuur laga qaado lana ballaariyo adeega bulshada, in la difaaco xoogsatada. mowqifkiisa ayaa waxau ahaa mowqif horumar doon ah. dhaqdhaqaaqaas oo dowladda Mareykanka ka dardargalay wixii ka dambeeyay 2008 xilligii qalaasaha dhaqaale uu Mareykanku afeeyey, wuxuuna noqday nin codkar ah oo u qareema dadka saboolka ah oo gaadiid raqiisa ama sicirkooda hoos loo dhigay u hela. wuxuuna gacan ka geystay ololihii lacagta lagu raaco basaska uu bilaash uga dhigayay xaafadda uu degan yahay Queens. wuxuuna sidoo kale dalbanayay in maalgelinta ay ka timaado dowladda hoose qaybta gaadiidka qaabilsan. siyaasaddiisan ayaa mudnaanta siinaysay inuu aaminsanaa in xukuumadda ay si toosa hoos ugu dhigto cadaalad darrada. waxaana loo arkayey in uu sumcad badan iyo magac badan ka helay dadka codbixiyayaasha ah ee siyaasadooda bidixda u janjeertay, halka dadka kasoo horjeedana ay ku doodayeen qorshayaashiisa waxay u baahan yihiin lacag badan, lacagtaasna mid la bixin kara maaha. waa gartay aragtidiisa siyaasadda arrimaha dibadda iyo doodaha ka dhashay bal inooga waran. inkastoo uu ka shaqaynayay dowladda hoose, Mamdani ayaa aad uga wada hadlayay mowqifyo kale oo la xiriira siyaasadda arrimaha dibadda, gaar ahaan markay timaado Falastiin, Israa'iil iyo dowladda Mareykanka faragelinta ay ku hayso caalamka intiisa kale. marka ay timaado Falastiin iyo Israa'iil, Mamdani ayaa waxa uu aad uga hadlayay Mareykanka saraakiishiisa la doorta waa inay ilaaliyaan xuquuqda Falastiiniyiinta, oo uu ku sheegay waa in lasoo afjaraa militariga Mareykanka gargaarka ay siinayaan Israa'iil. wuxuuna taageerayay in dowlad Falastiiniyiintu leeyihiin la dhiso, in baaritaan lagu sameeyo xadgudubyada ka dhanka bini aadamka, in hubka loo wareejinayo ama lagu isticmaalayo in dad rayida wax lagu yeelo in Mareykanku uu joojiyo. taageerayaashiisa oo qaar badan ay soo galooti yihiin Muslim ama Carab ama Yahuudda Falastiiniyiinta la jirta ayaa soo dhoweeyey hadaladiisa oo aaminsan in siyaasiyiinta caadiga ee Mareykanka inay arrintaas ka baaqsadaan. waxayna ku doodayaan in uu keenay akhlaaqiyaad wanaagsan oo markii hore hal dhinac siyaasad u janjeerto Israa'iil lagu taageeray keliya ay socotay. dadka cambaareeya oo ay ka mid yihiin dadka Israa'iil taageera iyo ururada Israa'iil taageera ayaa ku eedeynaya inuu si sahla ka dhiganayo colaad miriqsan oo uu ku sheegayo hadallo aad u kulul oo guracanna u jeedinaya Israa'iil. Mamdani ayaa ku gacan saaraya eedeymahaasi inuu dhinac u janjeero, wuxuuna ku adkeysanayaa in uu u qareemayo, u dhiirigelinayo xuquuqda aadanaha, in loo arko inayna ahayn inaan Israa'iil looga soo horjeedin ama Yuhuudda looga soo horjeedin. wuxuuna markasta ku celceliyaa in uu garab taagan yahay dadka aan hubaysnayn, in aanan waxba la yeelin, meeshay rabaan ha ku noolaadaan ama ciday rabaan ha aadaan. Mamdani ayaa inta badan faragelinta waddanka Mareykanka ee